koonfur galbeed markaan waxay agta saartay wadada dagaalka kadib markii ciidamadii taabacsanaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ay soo direen digniintii ugu dambeysay waxaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay halkaas ka imaanaya ciidamadii daacadu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen markaan waxay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay markaasi ka hor doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo siday ugu hortagi lahayn falkeeda ay ku jiraan ciidamo maleeshiyada oo markaasi oo ka goostay dhinaca maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray barnaamijka magaaladaasi waxayna ku biireen ciidamadii daacadu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen aadan madoobe markaan doorashadii shaka ayaa ku jirto Shariif Sakiin oo ah madaxweyne hore ee maamulka koonfur galbeed markaan wuxuu u muuqdaa inuu kaga adkaado doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xogihii ugu dambeeyay iyo akhbaaraad kale ka imaanaya ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 7 bisha 6 Juun sanadda 2020 duleedka magaalada Baydhabo waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamadii daacadu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen waxay doonayaan inay la wareegaan duleedka magaaladaasi hase ahaatee doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa xilligan gurfaynteeda lagu jiraa iyadoo musharaxnimada uu qaatay madaxweynaha markaasi ninka u tartamaya Sheekh Nuur Aadan Madoobe xogii ugu dambeeyay halkaas ka imaanay waxay tilmaamayaan in ciidamadii daacadu ah oo warkacaya afayeenka maamulkaasi Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ay markaan doonayaan inay markaasi la wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Lafdagareen oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa ciidamadan gadaal ka riixaya dawladda difaac ay ku jirtaa dhanka caasimadda waxa markaasi kaga furan dagaal u dhaxeeya xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka sidoo kale koonfur galbeed culays ayaa kaga imaanaya xiisadii maamulka galmudug way istaagtay Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor markan haniyiisa ayuu fulay wuxuuna doonayaa inuu markaasi uu ka tala baxo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maamulka koonfur galbeed uu hogaamiyo Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo ah markaasi ku simaa maamulkaasi maara waxay u laayeen in markaasi tabashooyinka ciidamadii daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen la xaliyo hase ahaatee ciidamadaas waxay sheegeen inay dagaal kula wareegi doonaan duleedka magaalada Baydhabo ama guud ahaanba magaaladaasi qaybo kamid ah waxa gacanta ku hayo xubno ka tirsan kooxda al-shabaab maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Muqdisho iyo magaalada Baydhabo ciidamada dawladda lukuma gali karaan diyaaradaha dagaalka ee markaasi Turkiga ayaana ka caawiye in ciidamada dawladda ay gaaraan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhawaan ayay ahayd marka halkaas lagu dagaalamo oo laba taliye guuto lagu dilay haddana ciidamadii horkacayay markaas Ugaas Xasan Cabdi Maxamed markan waxay doonayaan inay dib u qabsadaan magaaladaasi hanjabaadii ugu dambeeyay ay soo saareen ka hor doorashada loo madalsan yahay in bartamaha bishan lagu qabto magaalada Baydhabo taasi oo ku tartamayaan Shariif Sakiin oo ah madaxweyne hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay dawladdu maara u laadahay iyo sidoo kale Sheekh Nuur Aadan Madoobe oo markaasi ka socdo xisbiga kaarka GSB Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen iyo xukuumaddiisu waxay doonayaan inay dib u la wareegto magaaladaasi waxay sheegeen in markaasi ay talada gacanta ku hayaan ay si ku meel gaar u sii maamulayaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya hase ahaatee ciidamada dawladda ayaa markan kaabiga ku hayo inay ciidamada si gacanta ku dhigaan oo ay kala wareegaan hub iyo saanad ay ku dagaalamayaan dhawaan taliyaal loo magacaabay magaalada Baydhabo ayaa gaaray halkaasi abaabulay halkaasi ka wadaan waxay doonayaan inay meesha ka saaraan ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen baaqi ugu dambeeyay ay soo saareen xubnaha ka socda dhanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen waxay sheegeen in markaasi ay doonayaan inay la wareegaan dagaalada ama markaasi dagaal ay kula wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya warar dheeraad ayaa sidoo kale ka imaanay halkaasi duleedka magaaladaasi laba maleeshiya beeleed ayaa isku dagaalay tan iyo markaasi shalay ay isku horfadhiyaan dhaawacyo kala duwan iyo markaasi dhimasho ayaa la soo warinayaa waxa la isku haystaa dhul daaqsimeed halkaasi ku yaala labada markaasi maleeshiya beeleed cid hadda dhex gashay mala maamulka koonfur galbeed ayse kala doonayo la kulmaya doorashada ayaa dhawaan loo fadhiyaa ciidamada daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen dhowr mar waxay carqaladeeyeen doorashadii golaha wakiilada iyo markaasi tan markaasi golaha dadka deegaanka oo dhowr mar dib u dhacday hase ahaatee tii maamulka koonfur galbeed oo xilligan loo dhaqaaqi lahaa ayaa caqabad weyn ka taagan tahay ciidamada Lafdagareen ayaana markan waxay ku raajoogaan inay la wareegaan xubnaha sida weyn uga dhaqdhaqaaqaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xogaha halkaas ka imaanaya waxay tilmaamayaan in markaasi dawladdu ay markaan u jeeysanayso magaalada Baydhabo kadib markii ay soo afjarto howlgalka wajiga koobaad ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho ka soconaya halkan isha ku hayso xogii ugu dambeeyay ee gudaha Soomaaliya